nool dalka Hindiya ayaa caloosha ka dooxay xaaskiisa oo uur leh si uu u ogaado waxa uu noqon doono ilmaha dhalan doona, waxaana dhintay canugii uurka ku jiray sida ay sheegeen booliiska dalkaasi. Qoyska haweeneydan waxay ku eedeeyeen seegeeda in sababta uu weeraray ay tahay inuu markasta doonayo inuu ogaado canuga ay sido xaaskiisa, gabadh mise wiil. Lamaanayaashan waxay dhaleen 5 gabdhood. Ninka wuxuu si joogto ah xaaskiisa ugu cadaadin jiray inay dhasho wiil, waxaana xabsiga la dhigay ninka dhaawaca u geystay xaaskiisa, balse wuxuu beeniyay in si ula kac ah u weeraray. Waxay arrintani ka dhacday degmada Badon ee dhacda gobolka Uttar Pradesh, waana meesha dadka ugu badan ay ku nool yihiin waqooyiga Hindiya. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in haatan xaaladda haweeneydan ay wanaagsan tahay isla markaana lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada Delhi. Gabadh la dhalatay haweeneydan ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in lamaanayaasha ay markasta ku murmi jireen arrinta ah inay dhasho wiil. Wuxuu seegeeda warbaahinta gudaha u sheegay in bir caarad leh uu ku tuuray xaaskiisa, xilligaasina uusan u malaynayn inay dhaawacayso. Waalidiin badan oo ku nool dalka Hindiya waxay inta badan ku rajo weyn yihiin inay helaan wiilal badan. Ku dhawaad 46 milyan gabdhood ayaa la la'ayay halka jaan iyo cirib ay dhigeen Hindiya 50kii sano ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay bishii Juun. Sanad kasta in ka badan 460,000 oo gabdhood ayaa caloosha hooyadood laga soo xaqaa inta aysan dhalin, arrintaasi oo ku salaysan inta badan in la doorbido wiilasha. Waxay tallaabadaasi horseeday in gabdho badan ay dhintaan maadaama la dayacay. Warbixin ay soo saartay dowladda Hindiya sanadii 2018 waxaa lagu sheegay in damaca loo qabo in la helo wiilal ay horseeday in 21 milyan oo gabdhood la dayaco guud ahaan waddankaas. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa yiri wiilasha oo lagu qiimeeyo gabdhaha korkooda waa cilad xagga shucuurta ah, wuxuuna ku baaqay baraarujin bulsho si loo arko gabdhuhu inay qiimo leeyihiin sida wiilasha oo kale. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inaysan jirin hooyo rabto inay disho canugeeda, laakiin ayuu raaciyay cadaadiska qoyska iyo bulshada ayaa ka dhigaya inay ku lug yeelato fal-dambiyeedkan. Dhaqanka soo jireenka ee Hindiya, wiilasha waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kheyraad qiimo leh, waxay ku kasban karaan lacagta qoyska, waxayna daryeeli karaan waalidiinta da'da weyn. Gabdhaha waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa shartooda wata, taasoo ku keenaysa cadaadis dhaqaale hooyada iyo aabbaha iyo dhammaan qoyska ay ka dhalatay. Sababtoo ah waalidku waa in ay siiyaan meher, inta badan lacag ama hanti, qoyska ninka gabadha ka guursanaya. Dadka faqiirka ah, kuwa hodanka ah, kuwa reer magaalka ah, kuwa reer miyiga ah, kuwa aan wax baran iyo kuwa aqoonta leh ayaa inta badan raba wiilal. Cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in doorashada in la soo rido ilmaha caloosha ku jira marka la ogaado inay gabadh tahay ay ku badan tahay dumarka wax bartay. Waxay sidoo kale ogaadeen in diinta aysan wax isbeddel ah samayn. Xarunta cilmi baarista horumarinta caalamiga ayaa fulisay daraasadda sanadkii lasoo dhaafay. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay waxay ka digtay tirada gabdhaha sii yaraanaya ee Hindiya inay gaartay xaalad degdeg ah. Waxay sheegtay haweenka la'aantood inay sababtay kororka dembiyada qaarkood sida afduubka iyo ka ganacsiga haweenka.